السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب خالقة كسو دبادة برنامج كفاطمة هاستو ما شاء الله فاطمة هاس محينو هيسا مانتا فاطمة هاس وحينو هيسا هاد ماسكي أنا عادي هينو كواليتي إن شاء الله وهار استريجين يشايني ما شاء الله يسموت أيو تمح كاغا ديغا إن شاء الله تمها تما aad u qurux badan ayuu kaaga dhigaa waxaan rajeynaa si wanaagsan inaad uga heli doontiin insha Allah fadlan hadaad nagu cusub tahay subscribe dheh ciid mubaarak horta ciid mubaarak asxaabta ku xiran kanaalka Faaduma Haasto ciid mubaarak ee idin leeyahay kullu caam wa antum bikhair insha Allah bish ciid wana dhalata ilaahay insha Allah khayrkeeda hana waafajiyo soonka ramadaankana ilaahay naga aqbal insha Allah fadlan hadaad nagu cusub tahay subscribe dheh asxaabta hore noola joogta haddaad tahay qaybta like-ta naga soo dhis fadlan share garay barnaamijkayga asxaabtaada ahaladaada iyo inta kugu xiran waxaan rajeynaa si wanaagsan inaad uga heli doontiin insha Allah haar maskigeena muxuu yahay haar maskigeena horta easy waaye maasha Allah aad ayuu u fudud yahay haddana quality ayuu leeyahay haar maskigeena muxuu qabanaa haar maskigeena number 1 darayga ayuu ka saaraa timaha qaleelka ayuu ka saaraa number 2 timihii vitamin ayuu siinaa number 3 timahada protein ayuu siinaa number 4 timahada haar stretching waa timahada uu ku kala bixbixinaa oo uu feereynaa timahada insha Allah runtii aad ay u heli doontiin haduu ilaahay yiraahdo iskaalka xataa igoo ku jilcinaa oo iskaalka hadoo qalalo ugu timahaadana ay soo dhacaan soo siibmayaan bacteria ku bilaabanayso oo hee hooy lekker goed zo hamsi goed zo ayu doy ما شاء الله سوري صعبي فيديو مركاشيدا ايوب السو حاضر يا مفانت حاضر ني اصلا وعمل اسك دغا وفل دعم الهبلاي حاضر واشي كذا ان شاء الله وي قصي timahaada haday iskaalka hadoo ka qara ama dhakada sida u taqaanid timaha waxay ku fadhiyaan dhakada hoose oo salka hoose haday timahaada ay ka qalalaan tintaada kor way u dhamaatay okay waxa iimaanaysa ama agool inoo ay iskaalkaas ku imaado oo timahaada madaxaada dhakadiis inoo agool ku imaado oo qolofo kaleento oo qalalan ee dhasho sidoo kaleento waxyaabo cad inoo dhala ku iimaanayso sidoo kaleento waxa iimaanaysa inuu bacteria dhasho kaleento qaleelka markuu ka bato kaleento meesha inay taaganto ee bukato kaleente okay hadhooti marka qaarkiisa inaad tintaada ay soo siibanto soo dhacdo kaleenta ayaa ku iimaanayso sidaad cudurka ula dagaaltamaysid ayaa la rabaa mar walba timahaada inay qaleel noqdaan in ula dagaaltantid saas darteeda maskigan timahaada qaleelka uu kala dagaaltamaa maskan waxyaabaha kaleenta oo qabanayo waxa kamid ah timahaada haday miisaan lahayn miisaan ay u yeelayaan oo timahaada timo miisaan la ay ka dhigayaan timahaada haday miisaan lahayn timo kala taagan oo يعني اس aqbaleeno markaan isku xirtiribta xataa is yeeleen ayaan qanayaan timaha haday qalalan yihiin way kala haadayaan habar jina qabto waxa u maleysaa maga kaamirada ku dashtima saas u kala faxsan yihiin ma fahanteen laakiin haday timihii qoyan yihiin in nafaqaysan yihiin way jilcaayaan tinta way jiifanaysaa oo israacisa way is ogolaanaysaa miisaanna wuu yeelaa maskan timahaada sidoo kale wuxuu ka caawinaa maskan in kalarka timahaada inuu timahaada timo hilhilaacayo oo nuuraayo oo isha soo jiidanayo oo yahay oo aad hadda isfiirsan isku qanci kartid xaajigaana hadoo fiiro sidoo kale oo ku qanci karo waxaan rajeynaa si wanaagsan uga heli doontiin insha Allah inta maxaa ku heesanaa afartan shay bisoo ka kooban yahay inta waxaa ku heesanaa yooqarka timaha protein ayuu siiyaa miisaanka timaha wuu kordhiyaa oo timahaada miisaan ayuu yeelaa kalar macaan oo hilhilaacayo oo cuseeb ayuu yooqarka timaha siiyaa yooqar af Soomaali waxa ku dhahnaa caanaha garoorka waa kuwa adag waay kuwa biyaha ahay ma aha laakiin kuwan way adag yihiin ma sha Allah maxaa kale inta ku heesanaa vitamin E oil ishaq ee timaha daatay way u fiicantahay way soo celisaa sidoo kale inta iskaalkaadana iskaal baby oo jilicsan ay ka dhigaysaa oo khaleelkii waxyaabahaas way ka saaraysaa oo iskaalkii ishaq duqnimada iyo waxyaabahaas way ka saaraysaa meel dhalinyar oo yani maqaarka oo timahaada maqaar jilicsan ay ka dhigaysaa oo qurux badan vitaminna way siinaysaa timihina way dheeraysaa oo way bixisaa inta waxa ku heesanaa coconut oil af Soomaali anaka waxa dhahnaa saliida oo qumbaha
okay saliida qumbaha waaye saliida qumbaha isha mar walba waxyaaba isticmaalaysid waxyaabo oo isha wax lagu dardaraha isticmaalin oo ama catar lagu daray ama shay kale lagu daray saliidan hadee qumba tahay qumba kaligiis inay tahay organic inuu yahay oo qumbaha yacni oo isha wax kale lagu daray ama catar lagu darin ama caleenta mintiga la dhahay lagu darin ayaa la rabaa oo saliid qumba kaligeed oo saafi ah inay tahay saafi waa garan kartaa ama dabiici inay tahay oo wax kale lagu darin okay waxaan rajeynayaa si wanaagsan inaa ifahanteen wax carfaayna timahaada ha marin haddaa timahaada wax carfaaya aa marisid ogow way jajabi doonaan wayna daadan doonaan hadday saliid tahay kareem hadduu yahay maask hadduu yahay wax carfaaya timahaada bataatanka mamnuuc xaajigan timaha u carfina jirkaada iyo diraca afkiisan hore iyo haddaad wax carfaaya aa marisid iyo qoortaada agteeda wax carfaaya haddaa marisid timihiina way usoo carfaayaan xaajiga waayo timahaada kooda hore hadday wasaq ahayn ma shiiraayaan dad qaarkood waxay ku dhahayaan xaajiga timaha inuu shiirkooda iga uriyo maro timaha carfiya way kaa daadanaya adoo madax diiran ama madaxaada dhinac ka xogxoganya ag fadhiisay hadhootidi haddii aadan catarka ka ilaalin iyo barfuunka okay sidoo kaleenta barfuunka timaha lagu biifinayo kaleenta iyo catarka oo kaleenta cirada ay soo dejiyaan timahaada inuu cayo ciro yeeshtaan ayay kugu soo degdegaysa haddaa timahaada catar ku buufisid ama dadka catarka timaha ma mariyo kaleenta aad tahay ama barfuunka weliba barfuunka aad cirada u keeno insha allah iska alaali hadalku waa idinku badiyay sorry coconut oilka isheeg hasha tinta way weynaysaa dhalaal ayay timaha ka dhigtaa bacteriada iskaalka oo kaleenta antifungalka la dhahayo kaleenta waxyaabahaas oo kaleenta way nadiifisaa maasha allah geedan isheeg aad ayay u wanaagsan tahay waxaan rajeynayaa si wanaagsan aa u heli doontiin inta waxaa ku haystaa olivera gel haddaa haysada midda organica ah oo xataa oo isheeg caleenta geed talaalka la iska dhiga caleenta oo yacni dacaarta sideeda loo soo gooyo kaleenta haddaa haysatid waa isticmaali kartaa insha allah oo tan xataa way kasii wanaagsantaa taas waa hubtaaba gacantaada geedka kaga soo goysay dabiiciga waa shiiday waa ku darsanay olivera gelka vitamin E ayay leedahay sidoo kaleente antibacteria waaye timahaadii bacteriada ayay ka dilaysaa hadalka idinku badin sorry hair stretching waaye timaha way feereynaysaa intaas ayuu ka kooban yahay hadda waa isku dardareynaa ilaa fool ku taal maasha allah asxaabi inta baaquliya ii yaalo waxaan soo qaadaa yoqarka waxaa ka hormarinaa saliida qumbaha way cusub tahay way isdhuuqay markay cusub tahay ujeeda hal qaado oo coconut oil ah waaye جنتي الدنيا يا أمي انت حكيستا هل قادة أو coconut oil حكو صدرها هل قادة لبا قادة أو يوخر waxaan kaloo kusoo daraa vitamin E oil haddaa haysan waxaa isticmaali kartaa vitamin E capsule qiyaastii 2 xabo capsule ayaan isticmaalaa qaadada ha buuxinin qiyaastii 2 capsule camal isticmaal insha allah hadduu ilaa yiraaho iyo hal qaado oo dacaar ah dacaarti waaye جنتي الدنيا يا أمي حسنينينا وأسحقليهنا سيدي أسحقلي أسلح هذا وقودة خاتمها إن شاء الله tintaadoo dhan wada cadag soo bixisa ujeeda afaaraha sidoo isku diyaariye isku garaac si hal shay oo isugu noqdo ujeeda seesa la yidhaha afaarahan oo kaleente nomi skersa faadumahaas baa la yiraa markaa qabanaysaa timahaada 4 kuus ayaad ka dhigaysaa waa shaleynaysaa 4 kuus aad ka dhigaysaa
shalay soo qaad maaskiga mari okay si fiican u mari salka hoose dhanna ku masaajay timahaada masaajada sidaas waaye iskaalka tinta ma aha waxa masaajada tinta saana wax u marinaysaa markaa soo qabid saas u jiidaysaa kareemka soo qaadi waa marinay saas u soo jiidaysaa tinta saas u soo jiidaysaa laakiin salka hoose waxaa sameynaysaa soo qaadi waa marinay faraha saaraysaa saasa dhihaysaa masaajada iskaalka wareega dhiiga timaha ku baxa ayaa dhalaalaya oo xargaga kaas hadoo xargaga timahaada ma baxayaan marka sidaas darteeda timihii dhabarka kaga dhigayaan markay xargagaan oo tintii ay ku dhigayaan marka haddaa masaajeysid dhiigiibu oo wax ku dhigi lahay wuu dhalaalaa dhiigana dhiig weyn oo adi madaxaada dib u keenaha umaleynin markoo dhalaalo tintii wixii ku dhiganaay ayaa kasoo fuqaya tintii waxa u fududaanayso in ay soo baxdo sidoo kaleenta masaajada aad tinta salkeeda ama masaajeynaysa waxay ka caawinayaan dulduleelada oo madaxa tinta oo ku baxa timahaada fiiri madaxa fiiri ama cunuga doo ku joogo tintii si fiican u fiiri tinta salkeeda duleel waayo wax meesha ay tinta ku dhex taala duleelay ku dhex taala maayna dhanka adag isaga taagna tinta laakiin duleelay ku taala duleelkaas wuu xirmaa duleelkaas hadoo xirmo ama aad u yaraado tintaada waxaa ku adkaanaysa inay dheeraato ama ay baxdo marka haddaa masaajeysid duleelkaas wuu furmaa hadoo furmo tinta waxaa u fududaanaysa inay si fudud ay kugu soo baxdo waxaan rajeynayaa si wanaagsan inaad uga heli doontiin wiil gabar qof kasta wuu marsan karaa isbuuciina hal mar ayaa marsan kartaa markaa marsatid kadib timahaada bac ku xir bac markaa ku xirtid kadib isheeg hal saac ayaad ku haynaysaa hal saac wixii ka dambeeyo shaamba isaga dhaqaysaa kooda hor biyaa la raacsiya xataa maasaska timaha aad ka dhaqaysid isla markii timihii oo maaskii ka buuxi inaad qabatid shaambada ha ku shubin harootidii timihii waxaa isleedahay qashinkii maxaa la wixii aan marisay ka saar isleedahay shaambada ku shubi oo waxayna waxaa marisay oo dhanna wuu ka baxaa oo timihii waxaa marisay oo dhan wax ma u qabanaya kooda hor waxaad samaynaysaa maaska aad biyo kaga dhaqaysaa timaha biyo markaad kaga dhaqdid oo maaska inaad ka nadiifisa aragtid wuxuu u baahanaa wax yar oo raacsiis raacsiiskiya marka wax yar shaamba gacantaada ku dhibcinaysaa labada gacana ismarinaysaa timihii marinaysaa markaasaa raacsiinaysaa laakiin maaskoo timaha ka buuxo haddii shaamba ku shubaa dhahdeed birigo dhan caaga nuskiisoo shaamba shababab waa ku shubi bafdhe timihii dhan nafaqada iyo wixii dhan waa ka baxaawo markaa dhoota qalalaan taag ay kaa naqanayaan waxaan rajeynayaa inaad si wanaagsan ii fahanteen insha allah waa walaashiin Faaduma Haasto oo idin jecel oo idin dhehayso ka faa'iideysta sheer gareeyo kuminta qurux badanne haddii hal igu soo daadsho waa walaashiin Faaduma Haasto idin jecel oo idin dhehayso maxay idin dhehehe fi amaanillah